wasiirkii hore ee horumarinta ee dalka Denmark Master Christian Friis oo maalmihii u dambeeyay safar ku joogay Somaliland ayaa ka warramay ujeedada socdaalkiisa iyo kulamo uu la yeeshay madaxweynaha Somaliland iyo wasiirada xukuumadda qaarkood. Christian Friis oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu dalka u yimid mashaariic la xiriira horumarinta kalluumaysiga isla markaana ay doonayaan inay mustaqbalka dhow Somaliland ka furaan warshad kalluunka lagu farsameeyo si dalka dibadiisa loogu dhoofiyo. Christian Friis oo ah wasiirkii xilligii la hirgeliyay sanduuqa horumarinta Somaliland ee loo soo gaabiyo SDF isla markaana dawladdiisu furtay xafiiskeeda Hargeysa ayaa ugu horreyn ka warramay ujeedada socdaalkiisa xilligan, waxaana uu yidhi: magacaygu waa Christian Friis, waxaan ahay wasiirkii hore ee horumarinta Denmark. Iminka halkan waxaanu u joognaa aniga iyo Fishing inaanu raadino fursad si aanu u taageerno kalluumaysiga. 8 sannadood ka hor waxaanu nimid halkan anigoo ah wasiirka horumarinta Denmark. waxaanu furnay xafiiska Denmark ee Hargeysa, waxaanuna aasaasnay sanduuqa horumarinta Somaliland. taasina waxay ahayd aqoonsi Somaliland u aqoonsan tahay inay wax wanaagsan qabsatay. aad baan ugu faraxsanahay in Somaliland horumarkeedu uu si wanaagsan u socdo xitaa coronavirus soo jira. wasiirka hore waxa kale oo uu sheegay inay hadda arkayaan fursad wanaagsan oo lagu horumarin karo waaxda kalluumaysiga ee Somaliland, waxaana uu yidhi: waxaanu arkaynaa fursad aad u weyn oo ah waaxda kalluumaysiga ee Somaliland. taasina waa sababta aan halkan u joogo. Somaliland waxaanu nahay saaxiib, iminkana waan doonayaa inaanu saaxiibtinimadaasi adkayno, ayuu yidhi. waxaanu intaa ku daray oo uu ka warramay kulamo uu la yeeshay madaxweynaha Somaliland iyo wasiirada qaranka qaarkood. waxaanu kulamo muhiim ah la yeeshay madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga, wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranka, wasiirka maalgashiga Somaliland. dhammaantood kulamadaasi waxay ahaayeen kulamo muhiim ah oo midho leh. waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo madaxweyne Biixi sida uu nagu garab istaagay hawsha aanu ka wadno iyo horumarka aanu ka wadno Somaliland, gaar ahaan xagga horumarinta kalluumaysiga. waxaanu noo muujiyay inuu la garab taagan yahay oo uu nagu dhiirigelinayo hawsha aanu bilownay. ugu dambeyn wuxuu sheegay: waxaanu doonaynaa inaanu Somaliland ka furno warshad lagu farsameeyo kalluunka si wadamada kale loo geeyo. waxaanu rajaynaynaa in maalin dhow Denmark lagu cuno kalluun laga keenay Somaliland, ayuu yidhi, isagoo intaa ku daray in cidda maalgashiga samaynaysa ay tahay shirkad magaceedu yahay IFU, taasi oo hore adduunka lacag gaadhaysa $3 bilyan ugu maalgelisay ilaa 100 waddan oo kale. dhinaca kale, dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay xoojinayso isticmaalka dekedaha gobolka ee Somaliland ay ka mid tahay. dawladda federaalka ee Itoobiya ayaa sheegtay inay kordhinayso tirada dekedaha ay isticmaasho maadaama Itoobiya tahay dal dhul ahaan ballaaran oo aan lahayn haba yaraatay wax dekeda. maareeyaha dekedaha dawladda bilaa dekedaha ee Itoobiya Makonon Abara ayaa sheegay inay dawlad ahaan heshiis isticmaalka dekedaha kula jiraan Suudaan, Djibouti iyo Somaliland, balse aanay dekedahaasi ku filayn. sidaasi darteed ay qorsheynayaan inay isticmaalaan dekedaha dalalka Kenya iyo Eritrea iyadoo laga duulayo sidii loo yareyn lahaa kharashaadka Itoobiya kaga baxa rarka alaabooyinka uga soo dega dekedaha dalalka la deriska ee Somaliland ka mid tahay. maadaama uu dalkeenu ballaadhan yahay, waxaa muhiim ah in la adeegsado dekedo badan oo wax lagala soo dego. waxaana la daraasadeynayaa dhinacyada ugu habboon ee laga hirgelin karo dekedahaasi. tusaale ahaan, dhinaca galbeed koonfurta tee ku habboon, sidoo kale bartamaha dalka iyo bariga teebaa ku habboon. markaynu sidaa leenahay, waxaa laga duulayaa masaafada gaadiidka koontiinarada sida mid kasta goobtee laga soo gelin karaa, markaana waxaa la xadidayaa kharashaadkii ku bixi jiray dib u rarka, ayuu yidhi maareeyaha dekedaha ee dawladda bilaa dekedaha ee Itoobiya Makonon Abara. waxaanu intaa ku daray: ilaa hadda dekedaha aanu heshiiska la seexnay waxaa ka mid ah dekeda dalka Djibouti, Suudaan iyo dekeda Somaliland, Kenya iyo Eritrea. iminka ayaanu iyagana qorsheynaynaa. waxaanu qorsheynay inaanu ka faa'iidaysano dekedaha dalalka deriska iyadoo laga duulayo meel kasta goobta ku habboon ee alaabta laga soo gelin karo iyo alaabooyinka dalku dhoofiyo goobta ugu habboon ee laga dhoofin karo. maareeyuhu waxa kale oo uu sheegay in adeegsiga hal deked uu meesha ka saarayo tartanka ka faa'iidaysiga dekedaha, hase ahaatee adeegsiga dekedaha badani uu abuurayo tartan ballaaran.
kusoo dhawaada Kamil Fashion and Tailor dhar hadda tolanayso fashion-ko tayo leh tailor-ka ugu wanaagsan Kamilun u talaabso Kamil Fashion and Tailor waxa aad ka helaysaan guud ahaan tolimada dharka fashion-ka ee ragga iyo dumarka oo si casriya loo taliyo sidoo kale waxa aad ka helaysaan marada laga tolo toobabka khamiisyada waraadka go'yaasha iyo wixii la mid ah qiimaha oo macquul ah soo dhaweyn dabacsan iyo farsamo yaqaano ay xirfadoodu sareyso waxa aad ugu tageysaan Kamil Tailor oo ku yaala isgoyska xara awr wadada masjidka nuur hadaba kala xiriir 0633 82130 ama 0623 801456 mahad sanadeen